xubno kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Boorama ayaa saaka halkani oo isbitaalka magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal ku soo booqday qoyskii saddexda caruur ee walaalihi ay shalay toole galinkii dambe kaga geeriyoodeen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal kadib markii dab uu qabsaday jiingaday degan yihiin oo ku taala galbeedka magaalada Boorama wiilkii afraadna halkan xaaladiisa lagula tacaalayo kadib markii ay kormeerkooda soo dhameysteen ay soo eegeen xaaladda uu ku sugan yahay ilmaha yari waxay deeq lacag gaarsiiyeen aabihii dhalay afarta caruura iyagoo sheegay inay deeqdani noqon doonto barbilo fiican hase ahaatee xildhibaanadu iyagu iskooda isku soo abaabuleen golaha deegaankana uu hogaamin doono oo looga fadhiyo maayirka degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame Baradhe balse tani ay tahay deeqdani mid iyagu iskood ay isku soo maamuleen maanta waxaan ku soo booqanay Aabba Muuse oo si la socdo ay masiibo ama dhibaato xanuun badani ay ku dhacday dhibaatadaas oo ka timid dab qabsaday gurigiisii oo ay saddex caruur ah oo Sebiya ay ku nuf waayeen mid kalena uu dhaawac u yahay oo isbitaalka maanta u jiifo marka ugu horeysa horta ubadka dhintay waa yar bay ahaayeen laakiin Aabbo Muuse waxaan leeyahay adiga qoyskaagaba Ilaahay samir iyo iimaan haydi ka siiyo ilmaha yar ee isbitaalka yaalana Ilaahay caafimaad degdeg sareecana ha siiyo anagoo xildhibaanadii waxaan halkan u nimidnay marka koowaad horta aan kula wadaagno mudugada adiga qoyskaaga Ilaahay ha ka dulqaado dhibaatadaas marka labaad anagoo xildhibaanadii waxaan halkan u nimidnay inaan balbilowno in annaga oo meel kale oo waxba ka eegin balgurmadka ugu horeeyaan sanadku is xasuustaan oo is caawiyaan ayaa ugu haboon marka wixii annaga gacantayada ah een garanay een jeebkay ka bixinayno horta marka ugu horeysa inaan ku guddoonsiino oo ku soo gaarsiino ayaan halkan u nimidnay marka insha Allah waxaan ku guddoonsiin doonaa lacagtan yar oo ah lacag meel kale aan ka yimaanay annagu wixii aan qaadanay gunadeeda ka soo jarnay hadana xildhibaanada golaha deegaanka mid labaadna way nasaarantahay waa mas'uuliyadii aanu umada u haynay marka taana ka harimayno kulay maayirku waxaan u malaynayaa degmada isaga mas'uulka ka warqabaadee dhacdada dhacday iyo dhibtay geysatay xanuunkeeda ay leedahay marka isagana dib baan isku arki doonaa oo wargelin doonaa wixii naga beegan annaga ka maamul ahaana insha Allah waxaan jecelahay inaan soo gaarsiino qoyskaas dhibaatada soo gaadhay fariinta u dambeysana waxaan gaarsiinayaa ummadda islaamka gaar ahaan ummadda reer Awdal gaar ahaan kuwa degmada Boorama iyo qurbajoog labadaba ha ahaadaan inay qoyskaasi wixii gacan ah ay Ilaahay dirtay ay ugu soo caawiyaan waxa weeyaan dhibaatadu qofna lama ballamin maalinba qof bay haysataa marka islaamku hadaynu nahay diintayna faraysa dhaqankayna faraya inaan is caawino marka waxaan leeyahay walaalaha muxsiinta wixii gacanto ay ka bixin ka geysan karaan hawshaasi ha ku soo gaaraan Muuse hadal badan oran maayo runtii inta uu xildhibaanku soo yidhi nagu matalayo isku af baan ku hadlaynaa saasina ku dhantahay tacsida iyo dareenka u baan waday hal kaliya ayaan cadeynaynaa dadku inta badan waxay laba dhinac bay leedahay saxaafaddu waxay moodayaan inaanu igu sawirtii iyo waxyaabo kale aan uga dan leenahay ujeedada ugu weyn ee aan TV-ga iyo media-ha u soo gelinayna waxay tahay inay walaalaha kale ee khayrka jecel ay nagu daydaan oo ay arkaan oo qof kastaaba wixii karaankiisa oo uu ka geysanayo qoyska xaaladda la soo diristay oo kaga caawinayo inta baan aan idin ogeysinaan doonaynay oo aad aragtaan oo noqoto media-hu meel khayrka wal mid laba afle walaba dhinac ay adeegsato weeyaan waxaan uga go'leenahay in dhinaca khayrka loo adeegsado oo caawimaad iyo taakula walaalaha loo fidiyo aad iyo aad baan runtii aan uga xunnahay xaaladaas waana wax Ilaahay keenay samiri iyo baan idhoon tacsiinay ka mas'uuliyad xildhibaan ahaan baan ku soconay ka dawlad hoos ahaan odayga golaha deegaanka insha Allah nagu matali doona wixii golaha isla gartaan isaga soo gaarsiin doona talaal isugu noqonaya hadda se waxaan idhi gurmad hordhaca umadiinii tusa hal arko khayrka la idinkaga daydo inta kadib waxa ka mahadnaqay deeqda isla markaasina uu mahad celiyay xildhibaanada aabaha dhalay afarta caruura allaha na soo booqday oo yaani masiibadii dhacday intay dareemeen yaani soo gurmaday oo na soo booqday horta waan uga mahad celinaynaa waa walaalaha xildhibaanada degmada gobolka Awdal aad iyo aad bay u mahadsan yihiin arintana waa dareen iyo shucuur yaani wax weeyaan ay dareemeen salaajligeed arinta waan ka mahad celinaynaa waxaan leenahay waanad mahadsantihiin wax weeye booqashadaad nagu soo gaadheena Ilaahay naga abaalmariyo marka khayr baan rajeynaya
insha allahu tacaala dee masiibaduna kolley waa wax qadaroo waa wax shay la gaadho un weeyaan oo qadara cidna kuma talagelin balse wixii ilaahay qadaray innagu inaan ku sabirno oo aan ma garanaysaa ilaahay ugu dhowaano unbaa muhiima marka aad baan u mahadsantihiin suxufi cishqi MMTV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.